waxaan rabaa inaan halkan ku yara caddeeyo hadal aan maalintii dhoweyd goobtii burco dad badan oo somalilan dhib ku ahi ay hadalkii si khaldan u turjumeen hadalkaasi wuxuu ahaa magaalo buuhoodle madaxweyne waxay u baahan tahay political intervention and reconciliation in laga sameeyo oo macnaheedu yahay in loo yeero dadka oo aynu siyaasad ahaan u dhex gallo oo aynu dabeedna dib u heshiisiin la gallo dadka deegaankii kale ee deegaamada aanu ka soo jeednaa intii kale waxay ku jiraan boundarygii somalilan bay ku jiraan iyo xuduudkeedii waxaa aad iyo aad had iyo jeer conflict siyaasadeed ka jira deegaankaa buuhoodle marka madaxweynaha waxaanu ka codsannay inuu si siyaasiya oo la garan karo iyo qaabka loo wada hadlo ay arrintaa lagu dhex galo dad ba waxay u rogeen saleemaan baa xildhibaankii baa wuxuu yidhi military ha la weeraro xaashaa lilaah mana odhan karo mana odhan doono afkaygana ma aha afaan aqaanana ma aha dadka sharafta iyo karaamada leh waxaan leeyahay hadalkaa waa hadal been abuura oo ay sameeyeen nimanaan u bixiyey the players of two homes niman kubadda aad ugu bartay labadan guri ee dhexdooda oo nambar 8 iyo nambar 7 iyo nambar 9 iyo nambar 10 goolasha halkan ka dhalin yaqaana ayaa hadallada iga turjumaya iyo qaar badan oo u jeeda xumaan marka hadafkayga maaha dhaqankayga maaha culturekayga maaha maskaxdayda maaha inaan idhaahdo cid halala dagaalamo ama cid hala weeraro madaxweynaha iyo waftigiisiina dee wax meel ka odhan karaba maaha markaa dhammaan inta hadalkayga xumaynaysa waxaan leeyahay waar qof kastooba miisaankaaga iyo dadnimadaada iyo shakhsiyaddaada ilaasho oo ku ekow anugu qarankaan u shaqaynayaa 26 sannadood baan shaqaynayey waan wadayaa ilaa halka ugu dambaysa ee dhiiggayga ah waan wadayaa qarankan inaan u shaqeeyo cid aan u daba fadhiisanayaa ma jirto awowgay baa ka shaqeeyey awowgaygii labaad baa ka shaqeeyey awowgay baa xuduudka somalilan sameeyey iyo soomaaliya u dhaxaysa awowgaygii kalaa ka shaqeeyey anigu waan ka shaqaynayaa cid aan u daba fadhiisanayaa ka shaqaynta somalilan ma jirto kuwa iigu yeedha iyo kuwa i xumeeya iyo kuwa kelmadaha khaldan yidhaahdana waxaan leeyahay 26 sannadood waan shaqaynaya waana shaqayn doonaa ilaa halka ugu dambaysa ilaa aan somalilan qonofka ugu dambeeya ay israacdo oo ay sida ugu fiican dal macnale noqoto oo la aqoonsado waan shaqaynayaa insha allahu dhammaantiinna waxaan idin leeyahay wanaag baan idinku ogahay cidan anigu daba socdaa iyo cidan xumaan u daba socdaa iyo qofaan xumaynayaa midna ma jiro qofowna wakhti ha iskaga kay qaadin iyo saleebaan baa halkan marayey iyo waan garan karayaa ragga hadalladaasi waxa loo samaynayo inay character assassination tahay oo la rabo in laygu rag isku dayaan inay igu nuxurdilaan laakiin dadka iyo qiyam kale ee wax garanaya ee aanu somalilan ka soo wada shaqaynaynay ee aanu deegaanada dalka ka soo wada shaqaynaynay way i yaqaaniin qofka aan ahay way i yaqaaniin qofka aan ahay qofka dhibta iyo karaamada darada iyo cayda iyo u yaqaana wax wanaagsanna waa waayihii wakhtigaa sheegaya aad iyo aad baan idinku mahadinayaa waxaa halkaa ka aragtaan sidaan uga xumaaday sababtoo dacaayado badan baa la sameeyaa kama hadlo kama jawaabo laakiin tan waxaan uga jawaabayaa waa arrin khalada oo bulsho dhan iyo aniga la rabo in layska kaayo hor keeno markaa ma aqbalayo sidaasaa jawaabta igu kaliftay dhammaanna waxaan idin leeyahay wixii dhegihiinna dadkii iyo maqalkiinna indhihiinna ay aragtay mana ihi mana qabo tan aan leeyahay baa rasmiya waxaana u arkaa inay buuhoodle u baahan tahay in la wada hadlo oo somalilan wada hadasho oo ay dowladda la wada hadlaan oo waxa ay tabanayaanna miiska yimaadaan oo si nabadgelyo ah loo wada hadlo oo la kala maarmi maayo intii badnayd ee deegaamada aad ka soo wada jeedaan maanta meel bay u badan yihiin idinku waxa aad tabanaysaan waa run anaaba qiraya laakiin in la wada hadlo ayaa mudan oo miis laysugu yimaado oo aynu xal helno aynu ku wada noolaanno aad baan idiin wada salaamayaa dhammaantiin ciroole iyo qof kastoo sharaf leh iyo qof kastoo ku nool iyo qof kastoo deegaanka ka soo jeeda marka sharaf iyo karaamu
iga mudan yahay aad iyo aad baan u mahadinayaa yaa war xumo tashiil bulshada dhexdeeda inoo kala dhexgeli wasalaamu calaykum waa hagaag saleebaan xildhibaan waxaad carabaabtoo aad sheegtay ciyaaryahanno si khaldan kubadda u laagaya bal raggaa ciyaaryahanada ee sida khaldan kubadda u laagaya yaa tuunsan tahay kuma iyo kuma anugu nambaradaasaan bixiyey 7 8 9 10 waa gooldhaliyaasha caalamiga laakiin aan dhaafsiisnayn Hargeysa oo labada guri dhexdooda ka ciyaara aad iyo aad baan idin raalli idinka ahay warbaahintana saaxiib baanu nahay laakiin ciyaartooydaasi way jirtaa wayna jiri doontaa qof kastaana waxbuu waaye arag ku yahay marka in labadaa gool dhexdooda laga ciyaaro rag baa expert ku ah wada hadal kala doonaysaa aan ahayn ka hadda socda ee Khaatumo iyo Soomaaliland socda marka leedahay buu hadal ma mid ka duwan bad xilli baad u rabtaa buu hoolada way bahadash already wad maqlayeen idinka warbaahinta joogay buu hoolada tiri cidina nama matasho inay tiri yaa matalaya marka xildhibaan mar hadii deegaanka dadka loogu tagay iyo dadka buu hoolada jooga way xildhibaaneen arrintan siyaasiyiintiina ka soo jeeda barigu way soo noqnoqotay waxaana isku haysaana dadkii way fahmi laayihiin ilaa hadda muran baa idinka dhex bilaabmay arrintaasi maxay tahay soo cusbaa arrinta waa lagu kala duwanaan karaa fikirka waa lagu kala duwanaan karaa siyaasaddu maaha aayad quraan laakiin qaranka wixii dan oo ah qofka ku hadlaya waa la ogyahay anigu waxaan idhahdaa constitutionka dalka la ilaaliyo yaan constitutionka laga bixin adigu qof oranaya constitutionka dalka la jabiyo miyuu jiraa anigu inta aan leeyahay waa inta cid kasta iyo qof kasta iyo meel kasta oo dalkan ay dan u tahayna waa qofkii wax ka sheeganaya waa in lala hadlaa laakiin waxaa lagula hadlayaa within the constitution inaan xeerka dastuurka dalka laga bixin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh